halkan waa magaalada xafar albaatin oo aan soo gaaray xalay habeen barkii anigoo xilligaa ka soo socdaalay magaalada alqafji oo iyadu ku taala xadka kala baro wadamada Sacuudiga iyo Kuwait socdaalkaygan oo aan ka soo bilaabay dhamaadka bishii la soo dhaafay magaalada Jidda waxaan isu soo maray magaalooyinka Arrabuq, Yumbu, Badr, Madina al-Munawwara, Tabuk, Al-Qasim, Burayda, Rafha, Arcar, Sakaka, Rafciya, Nairiya, Lena, Rawdatul Abbas, Riyadh, Qafji iyo haatan oo aan idin kala hadlayo magaalada Xafar al-Baatin oo ay igu casuumeen dad isugu jira rag iyo dumar Soomaali ah kuwaas oo iyagu halkan degan magaaladan oo ah magaalo istiraatiiji ah haatan na soo koraysa isla markaana uu ka jiro dhaqdhaqaaq dhinaca ganacsiga oo aad u xoogan waxa ay marin muhiim ah u tahay gaadiidka iyagu isaga kala goosha wadamada Kuwait iyo wadanka Sacuudiga magaaladan waxa ay dhinaca waqooyi kaga beegan tahay magaalada caasimadda Riyadh 480 kilomitir halka ay u jirto xadka wadanka Kuwait 90 kilomitir iyadoo dhinaca kalena 70 kilomitir oo kaliya u jirta xadka Sacuudiga uu la leeyahay wadanka Ciraaq magaca Xafar al-Baatin ee ay magaaladani xambaarsan tahay waxa uu asal ahaan ka soo jeeda xilligii saxaabada waqtigaas oo ay xujayda iyagu ka imaanayay wadanka Ciraaq ay halkan lug ku mari jireen ilaa ay gaaraan magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama xilligaas oo ay halkan ka jirtay biilaan aad u baxsan taasoo keentay in xujaydii halkan iyagu lugta ku mari jiray ay markaa walaac xoogli ka muujiyeen biilaantii iyadu halkan ka jirtay taasoo markii dambana gaartay wakiilkii xilliga mandiqadan u fadhiyay nabigeennii subana naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo isagu lagu magacaabi jiray Abi Muusa al-Ash'ari isagoo markii dambana amar ku bixiyay in ceelal biyaha laga qodo wadada dhinaceeda magacan asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa halka oo micnihiisu Xafar al-Baatin waxa uu noqonayaa godadkii laga qoday dooxadii al-Baatin dadka Soomaalida ah ee iyagu ku nool magaalada tan ee Xafar al-Baatin ma aha dad tiro ahaan badan hase yeeshee waa dad isku xiran is-og iska warhaya isna xog waraysta waxa aan kala sheekaysan doonaa qaab nololeedkooda sida ay u helaan shaqooyinka iyo qaabka ay u xiriiraan iyo waliba xiriirka ay la leeyihiin wadankeenii hooyo ee Soomaaliya haddaba intii aan ku soo socdaalayay magaalooyinka aan haatan magacyadooda idiin soo sheegay inta badan meel waliba waxa aan kula soo kulmayay dad Soomaali ah mar walibana waxa aan xiiseynayay inaan kala sheekaysto qaab nololeedkooda sida ay u nool yihiin qaabka ay u shaqaystaan iyo waliba tirahaan inta ay leeyihiin iyo hadiiba ay yihiin dad xiriira oo isoo isna xog waraysta badanaa dadkaasi ma aan ahayn dad iga ogolaaday inaan ka duubo kaamirada haddii ay noqon lahayd cod amaba muuqaal kulligood waxay ahaayeen dad doonayay kaliya inay caadi ila sheekaystaan oo waxa ay qabeen aan fariir ku aadan marka ay timaado dhinaca kaamirada wax badan waxaan isku dayay inaan ka dhaadhacsiiyo inay muhiim tahay inay dadka la hadlaan sidoo kalena ay ugu warbixiyaan hadiiba ay jiraan fursado shaqo oo ay jiraan oo ay noqon kartaa in looga faa'iideeyo cid kale oo ku nool magaalo kale lagana yaabay inaanay halka ay joogto shaqo ku haysan qaarkood waxay sheegeen in shaqooyinka ugu badan ee halkan ka jira ay yihiin shaqooyinka loo yaqaan domesticada oo ah kuwa ay dumarku qabtaan haddii aan si kale loo dhigana waa shaqooyinka aqalada laga shaqeeyo inkastoo ay jireen dad kale oo iyaguna ahaa dad iskood u shaqaysanayay amaba lahaa goobo ganacsi oo ay iyagu magac ahaan samaysteen haddana mar waliba waxa ay dadkaasi ii sheegayeen inay jiraan dhibab ay qabaan kuwaasoo ay doonayeen inay mar xal ka gaaraan cid walba oo aan kula kulmay magaalo kasta oo aan soo maray waxa ay wax iga weydiinaysay isbeddelkii siyaasadeed ee isagu dhowaan ka qabsoomay waddankeenii Soomaaliya bal inuu haatan yahay mid hana qaaday iyo mid kale mar waliba waxaan u sheegayay in waqtigu uu yar yahay sidoo kalena loo baahan yahay in la helo waqti ku filan si loo qiyaasi karo halka ay marxalad siyaasadeedka Soomaaliya u wajahantay dadku badankoodu waa rajo ku nool waxaanay doonayaan in wadankoodu uu hagaago si ay dib ugu noqdaan mar kale
qaar badan oo iyagu halkan ku dhashay haatan waa mutacalimiin waxaanay badankoodu ka soo qalinjibiyeen jaamacadaha online-ka wax loogu barto ee dibadaha ku yaala waxaanay leeyihiin xirfado badan oo ay aaminsan yihiin inay wax weyn ugu qaban karaan dadkooda iyo dalkooda hase yeeshee walwalka kaliya ee ku taagan waxa ay tahay in nabadgelyada si buuxda aanay weli Soomaaliya ahayn mid soo aga dhigtay cid walba oo aad damacdo inaad la sheekaysto waxa ugu horeeya ay ku weydiinayso waa halka ay marayso marxalad amniyeedka waddankeena Soomaaliya walwalka xoogan ee hay dadka iyagu qurbaha ku nool waxa uu sii dheer in ay yihiin dad dareemaya inaanay ku nooleen dalkoodii ay lahaayeen aniga laftirkayga waxaan ahay rajo ku nool oo waxaan rajo weyn ka qabaa in aan arko Soomaaliya oo mar kale dib agaheeda ugu istaagtay sidoo kalena aan awood u heli karo inaan ka shaqaysan karo gobol kasta oo ku yaala Soomaaliya iyadoo aanay jirin cid markaa aniga haybteyda i weydiinaysa ugu dambeyn waa Liban Kulow oo idin leh maca salaama